السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaad saaxiibayaal kuna soo dhawaada kanaalkiina Amir Tag. waxaan rajaynayaa saaxiibayaal inaad dhammaantiin aad qabteen. saaxiibayaal maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsiisan yahay sidee fiidiyoada aad uga ilaalin kartaa markaasi copyright. haddaba saaxiibayaal waxaan rajaynayaa hadii aad kursiga kana soo booqatay inaad subscribe noo saarto muuqaalkana kilo markaasi inaad like noo saarto. aad ayay wanaagsan tahay saaxiibayaal maanta markaasi waxaan markaasi inaan kula wadaago sidee markaasi aad muuqaalada aad u ilaalin karto copyright. waxaan arkay markaas asxaab badan oo ilaahay markaasi halkay kala soo xiriira haddii markaas inaad ila soo xiriirto kaliya ila soo xiriir markaasi Facebook page-kayga Armani Studio kaliya fariin isoo qor oo ku soo jawaabaya marka saaxiibayaal haddii aad tahay markaasi YouTuber ama haddii aan nahay YouTuber marnaba lagama waayo markaasi muuqaaladana copyright. muuqaalkana sababtan u sameeyay maxay tahay sababtoo ah muuqaal aan maaragtay ahaan lahaa xasuus markii aan gaar markaasi 1 million subscribers ayaa waxa laga saaray copyright. aniga wax aan sameeyaan garanahay muuqaalka ma ka saartaa ama waxay ku leeyihiin in muuqaalka aan ka dhigno cod la'aan markaas copyright laga saari karaa. marka aniga markaasi waxay ugu dhacay markaasi music yar ay ugu qabteen marka sidaas ayaa dhacday. saaxiibayaal waxaan rabaa inaan kula wadaago 5 arin oo markaasi ka ilaalin doonta dad sameeyso in uu copyright ku dhaco. saaxiibayaal marka koowaad waxay tahay markaasi adiga la imow wax aad adigu leedahay. haddii aad kaliya samee hadaa rabto camera iska qaad meelaha soo duub vlog soo duub video iska duub cashir hadaa rabto soo gudbi waxa taqaano la imow adiga. haddii aad markaasi YouTube qof wuxuu leeyahay inta soo qaatay aan soo galiya waxa noqonaysa qof copyright ku dhaco hadana aan views helin hadana intuu YouTube ka caayis isla markiiba ka sii baxo. saaxiibayaal haddii aad YouTuber tahay wax laga baahay inaad dulqaad yeelato kaliya markaasi u samir waxaan loo samirin lama helo. marka saaxiibayaal kaliya samee in aad maaragtay aad muuqaal aad iska duubto adiga aad leedahay aad soo gudbiso. su'aasha aad isweydiinayso waxay tahay sidee maxaan sameeyaa ama su'aasha aad isweydiinayso waxay tahay maxaan sameeyaa maxaan ka hadlaa. saaxiibayaal kaliya ha iska lifin فضلا يسجلين سي عاد وحالو سو gudbiso waxyaalo badan ha isku day inaad barato kaliya samee waxaad ku dhaanto soo gudbi hadaa rabto cuntada hadaa ku dhaanto soo gudbi. marka saaxiibayaal koowaad waxaan la imo waxaad aad leedahay waxaan leeyahay laba imaanayo copyright muuqaalada mar inay u dhacaan taasi lagama yeelayo. talabaad waxay tahay qof wuxuu leeyahay ha isku dayin inaad soo qaadato sababtaas ku leeyahay maxay tahay haddii aad soo qaadato qof fiidiyogaasi qofkaasi isaga ayaa ku maamulayo ka soo qaado kaleeto fiidiyoada soo qaadatay horta YouTube sharcigeedu waa adeeg yahay fiidiyo oo qof soo dhigay haddii aad fiidiyoga YouTube fiidiyogii u horeeya ee la soo dhigaa ayaa markaasi qofkii soo dhigay ayaa iska leh ka soo qaado kaleeto fiidiyo yar ayaa iska waxaystay oo qorqorala iska qortay soo dhigtay haddii fiidiyogaas soo geliyo YouTube laga soo geliyo baa laga leeyahay kaliya YouTube laga soo geliyo laga isticmaali karaa. hadduu qof kale soo isticmaalo waxaad ogaan kartaa markaasi qof kale in muuqaalkaada ku sheegay qof kale ayaa muuqaalkaada isticmaalay marka copyright ku qaban kartaa. hadduu Facebook ku helay waxaad dhigi kartaa YouTube-ka lacagtu ma aragtay uu ka sameeyay waa inaan analyze sababta maadaama in fiidiyoga aan iska lahaa. marka saaxiibayaal talabaad waxay tahay la imow waxaad leedahay. saaxiibayaal saddexaadna waxay tahay markaasi sharci lagu magacaabo fair use sharcigani waa sharci maaragtay aan la hubin badanaa lama hubo laakiin marna wuu shaqeeyaa marna ma shaqeeyo. odhow YouTube email badan uma diri kartid ma dhigi kartid waxaan isticmaalaya markaasi sharciga lagu magacaabo fair use. marka saaxiibayaal sharcigani sidoo shaqeeya hadaan ku sheego muuqaal hadaad soo qaadato qof waxa lagu ogol yahay inaad ka soo qaadato 10 second ama 30 second kaliya ama 5 second intaasi ayaa loo ogolaa muuqaal soo qaadato. hadaad muuqaal aad soo qaadato qof uu leeyahay 31 daqiiqo soo qaadato muuqaalkaasi copyright ayuu leeyahay. wallahi bee kuma sheegayo muuqaal aad intaas oo saacadood aad ku soo waxaysay intaas oo saacadood gelisay aad editgiis ku soo rafaaday sida u leedahay muuqaalkan ayaa lacag fiican ka sameyn doontaa haddii qaybta monetization-ka laga xiro madax xanuun bay kugu tahay. marka saaxiibayaal aniga laftigeeda haatan waan yaabanahay YouTube ilaa wadan mar soo qaadato video YouTube waa kii marba ku xasuusta aniga video aan soo dhigay 8 bilood 10 bilood meelaas uu yeelay YouTube-kayga ayaa maalin dhow ayaa copyright laga saaray intaas oo maalmood ayuu yeelay wax copyright saaray maahan. marka saaxiibayaal music ay ugu qabteen
marka saaxiibayaal tamarkaasi afraadi maxay tahay su'aasha isweydiinayso waxay tahay waxaan rabaa YouTuber noqdo aan markaasi aan bixiyo reaction-ka marka sidee ayaan reaction ku bixin karaa waa su'aasha isweydiinayso sababtoo ah heesaha badana yacni waxay leeyihiin copyright oo lama isticmaali karo si aan markaasi uu fanaanka uu wax fiican uga helo hadii ka qofka la soo dhigto markaasi qofkaasi uu lacagta ka saas ayaa la diidiyaa marka saaxiibayaal su'aasha isweydiinayso waxay tahay yacni sidee ayaan reaction ku bixin karaa hadda يعني كليه سمع سوق هذا موبايل كذا أما لابتوب كذا كليه وحسن تفكاسي سماعات سوق هذا سماعات يعني وين أو معركتي أو ميكروفون يعني كاميرا هذا سفي عنه لغة مغلي سوق هذا كدي مركزي سماعات داسي استعمال كدي مركزي واحد عايز مركزي إن سماعات داسي يعني وأكيس بدلاية أكيس وحواس بدلاية صوبته يعني مركي فيديو أرجينال للسوق دي يكن اسمين معهن مركا سماعات دني مركز يعني مركا كوست طبعا هذا سوق هذا داني هيس أن دارو هيس مارت يوتيوب كثير سنيسو يتن اسم الحانة وحبي كل دقيقة يا دوقية جيسس كاي يرايو كلاتو يا مركز يستكلاي مركا بدنا يعني يوتيوبرز كبدنا رياكشن بحيو سداس ay sameeyaan samaacado waaweyn ayaa u yaalo markaasi ay reaction ku bixiyaan marka saaxiibayaal tushana hadii aan ku daro shanaadi maxay tahay markaasi waa su'aasha isweydiinayso waxay tahay markaasi copyright sideen uga baada waxaan u baahnaa markaasi music badanaan muuqaaladayda muuqaalkan haatan ay daawanayso waxa background-iisa ka yeeraya music marka sideen ku isticmaalaa music waxa jiro channel bixiyo markaasi no music يعني حب عيان no copyright يعني موسيقى no copyright أو يوتيوب كله سوق ليه كل مركز سوى استعمال كرتها كسوق هذا كله application ماذا أد كوير بقدرش كسوق هذا كله كاب كات كيم ماستر يعني software حتى حيليه مركز موسيقى ده مركز هذا استعمال شو إذا لفت وضوء عادي صعبته أنا هذا كمان هاي يعني استعمال لكن هو حلايا نديله يقصده لكن هذا هو عادي استعمال كرتها يعني أنا هذا ما لقيت فيديو يعني اللي تقرينا فيديو دم بيه موسيقى يا صار نمر كسانو قعبسنا إن ما ركت كبر اللي صاروا اللي مسار مركز استعمال كرت مركز ساعات لو حاجة مركزي فيديو هراء أنا كهالي أو مركزي سيدا يعني لا هلا موسيقى إنه كبر هذا وفري أو يوتيوب كاو استعمال كرت يعني يوتيوب كي يعني هو استعمال الموسيقى ده فري ولو يوتيوب حتى كوما قبسن كرتو أو صوبته يوتيوب كلا سود حديثة أي بحية هذه معركتي كوقبسنا وحدي كرتا يعني وكل دودي كرتا أو شرع هذا حيسته مركز صاحبيال وحركينا مركزين على مقالكم محبذة كيف هيدادي طيب ممكن شغلنا كسب بقد فضل محن كعصينا كلاك سبسكرايب صارته مقالكنا كل مركزين الله ينصرته أيضا ما سترحن لله بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.